garsoorku waa dhidibada cadaaladda waa astaanta dawladnimada waa u garsooridda bulsho sharci ku heshiisay garsoor la'aantuna waa burburka dawladnimada Somaliland waa dawlad curdin ah oo weli baadi goobaysa ictiraaf 30 sannadood dawladnimada Somalilandna waxay ka kooban tahay 3 dhadhaar oo waaweyn fulinta golayaasha baarlamaanka iyo garsoorka waaxda garsoorku waxay ku aasaasan tahay qodob dastuuri ah oo ka madax banaanaysiinaya labada waaxood ee kale maxkamadaha madax banaanay kama jirto xaajiyo runta ma kaan ku sheego wuxuu maxkamad gudaha Maxamed Sakacanta ku haystaa ma jiro isaga lafdigiisana madax banaanay su'aalo badan baa ka tahay madaxdeedu madaxweynuhu ka mid yahay wadada dhinaca doona u maraa dhinacana wuu mari karaa dhinacana wuu mari karaa sida wadada dhinaca doona ugu mari karo traffic uu isku jibin karo ayuu sharcigana dhinaca doona u mari karaa wadada markuu doona uu dhex lugayaa markuu doona wadada dhinaca shacabku leeyahay ayuu ka maraa marka isku xukun sharcigu dalka uu liitaa ugu dhacday aniga intaan garsoor ahaa kiisas dhan oo aan raantii hayay wasiir weygala hadli jireen maxkamadda sare iyo gudoomiyaheeda way soo mari jireen warkiiska jooji warkiiska sidaa hawdhan way ahay waan isleeyahay waqtiyadii qaarkood waxyaabihii keenay inaan shaqada ka tago qayb bay ka ahayd dootana taxawinihii isagoo warqadii faafinta hayd saaray ayaa laga shakisiyey oo la yidhi bahalkan wuu duran yahay awoodaheennii laguma shaqayn karayo waa arrintii u horeysay ama tii u gudkaada ugu horeysay ee dhacday ee ahayd arrin looga soo qaatay maxkamad abiil weliba gaar ahaan maxkamadda sare waa halkii ugu saraysay runtii in haddana ciqaabtii ama ganaaxii u noqdo isla wasiirkii ama wasaaraddii ama isla xukuumadduuna ay fuliso maxkamadu ma wax gaaray sameeyeen dawladda ka soo horjeeda ilaa cigaal ilaa iyo Abdiraxmaan Tuur ilaa intaan joogay yaa mi sameeyay ma jirto haddii ay kalsoonida ay garsoorka bulshadeena garsoorka ku qaban ay meesha ka baxdana waxa imanaysa bulshadii waxay sameynaysaa power of abuse in ay sharciga iyo qacanta ku fusho haddii sharciga qacanta lagu fushadana waxa dhacaysa waa case baa dhacaya qas baa dhacaya kidnapping baa dhacaya dil baa dhacaya qas baa dhacaya listila dhacaya haddii la istilo oo uu dhacana waxa weeyaan dagaal baa imanaya haddii uu dagaal imaadana destroying of society bulshadii way burburaysa yay u qar qaadeen maxkamaddu waxa weeye marka la doonayo inay arrin dastuuriya ay taama sharci waa in laba qof u yimaadaan oo laba dhinac u yimaadaan yaa u yimid iyadun baa isku timid iyadun baa intay isku timid faliistoo tiri tan inama anfacayo waxaan weydiinay madaxweyne hay'adihi madaxa bannaana waa inaad madax bannaysaa garsoorka iyo gawdhe intaa odmaya iga joojiyo intaan iga jira oo ka baxay intaas ka baxaya garsoorka Somaliland ma yahay mid madax bannaan imise jeer ayaa la isku dayay in la madax bannaanaysiiyo garsoorka yaa hortaagan oo dabar adag ku ah in madax bannaani buuxda la siiyo garsoorka dalka dhaqaale intee leeg ayay dalalka shisheeye ku bixiyeen si loo helo garsoor madax bannaan haddii la waayo garsoor madax bannaan maxaa ka dhalan kara sidee ayay u dhisan yihiin garsoorka dunida horumartay ee aynu kaga dayanno dawladnimadu saamayn intee leeg ayuu garsoorku ku yeelan karaa maalgashiga dalka ay ka samaynayaan shirkadaha iyo dadka ajaaniibta ah waxaannu helnay intii barnaamijkaannu wadnay caddaymo rasmi ah oo tilmaamaya sida xukuumadda u faragelisa garsoorka dalka